السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كسو dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa waxyaabaha laga filan karo markaasi xalqada soo socoto inagoona markaasi sharixi doono gosgoskii hadda aynu daawanay mar labaad leena dhacdooyinkii lagu daawaday muuqaalka hore ma aysan ahayn markaasi kuwa lagu soo koobi karo iyadana markaasi gosgoska uu dadka ku reebo markaasi xoga dhacdo xanuun badan kadib gacanta markii lagu dhigay Madana Cusmaan fadlan haddii channelka cusub tahay waxaan ka codsanayaa subscribe inaan noo saarto hore haddii noola joogtana muuqaalkeena la garay daawada aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay intaynaan guda gelin muuqaalka ka hor haatan ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadeerna si toos ah inuu guda galno muuqaalkeena maanta su'aasha koowaad oo dadka isweydiinayeen oo ahayd markaasi Madana Cusmaan sidaas loogu sameyn karaa ama loo xiran karaa ama qaabkaasi loola dhaqmi karaa oo asagoo hogaamiye dhan ah waxyaabo noocan oo kale in lagu gudbo Soomaaliya maadaama aynu marayna markaasi xilligii dawladda la aasaasi lahaa su'aasha koowaad waa sidaas taas hadaan ka jawaabo way fududahay jawaabtu waa soo koobaya wax kale maahan haddii aad ku fikirayso Cusmaan in uu markaasi yahay geesi isla mar ahaantaasina wax walba ay iska celin kara aad ku saxantahay inuu geesi yahay laakiin wax walba ay asaga caqabad ma wajihi karo midaasi waad ku qaldan tahay daawade mid xigto ah filimku ma ahan filim iska caadiya ee filim taariikhi ah weeye inkastoo qaladaad uu leeyahay haddana waxa loo baahan yahay meelaha qaar in la saxo oo la qurux badiyo tan oo kale ma tahay wax dhici karo waa ay tahay wax dhici karo xilidan oo kale Mongooliska awood bay lahaayeen inkastoo awoodoodii waagii hore kooqan ee iska baabada haddana awoodoodu lama dhihi karo markaas sidaas ay eber ku ahayd Cusmaanna dawladiis aad bay u yareed waa taageereed tanina waa macquul tani mariya baa markaa su'aasha labaad dadka isweydiinaya waxa inay riyihii ma laga yaabaa heedeen waa macquul inay riyata laakiin aniga ahaan ma rajeenayo markaas tan inay riyo noqon doonto waxay ku fiican tahay markaas dhacdo sax ah oo aynu ku daawanayno taxanaha inay noqoto saasi ku qurux badan tahay waayo aanu soo soconaa marka wixii Cusmaan lagu sameeyay waxa lagu sameeyay wiilka uu ahaa ee Suldaan Bayezid sida taariikhda ku xusan kadib markii Mongooliska afduubteen isaga dagaalka ay ku qabsadeen dalkii Ankara sanadii 1400 meelahaas oo kale tuu dhacay taariikhdiisa hadda ka hor aan ka soo sheekay janaalku waa ka helaysaa hadda dib ugu laabato daawada ninkaas asagoo awood leh ciidan fara badan haysto dawladda Cusmaaniyiintan awood ay leedahay ciidanka uu haystana ay ka badnaayeen ciidanka hadda Cusmaan uu ku faanayo 10 laab ay ka badnaayeen sidaas ay tahayna Timur-Lenk oo ahaa markaasi abaanduulihii Mongooliska ee dawladii Timuriya markaasi gacantu ku dhigay isla mar ahaantaasna xabsi ayuu gashay Suldaan Bayezidna xabsigaas uu ku dhintay marka Cusmaan muxuu noqon taas waxa ku soo baxay Cusmaan inuu soo noqon karin bataatanba hadda kale waxa loo baahan yahay door weyn oo taariikhi ah inuu taxanaha ku soo beero si dadka ay u farxaan isla mar ahaantaasna Cusmaan loo soo badbaadiyay laana isagana gacanta lagu hayaa cunugiisa orahan ay dhaxal sugaha ayna gacanta lagu hayaa yar ilbay lagu magacaabana kursiga ku fadhiistay wuxuu leeyahay aniga halkan ka taliyaba ana amiir ayuu leeyahay macquul maan markaa wax badan ay isdawayacsan taxanaana marka boosdag wuxuu doonayaa inuu soo qurxiyo rag culusna waa soo wada asasan rajayna Cusmaan qof badbaadiyo waa loo baahan yahay inkastoo dadka ay rajaynaya inuu turgud soo laabto aniga taa waa idin la rajaynaya laakiin ilaa hadda wax akhbaaraad laga ma hayo inuu ninkaasi taxanaha ku soo laabanayo insha Allah labada isbuuc gudood hadii la soo shaaciyo turgud ama courses waa soo sheegi doona ana soo shaacin doona doo ilaahay maayo waaya dadka noocaas oo kale aan filanayna inay ku soo laabtaan si Cusmaan markaasi dhibaatada ku jirto markaasi dhibaatada haysata looga saaro gebi ahaanba hadda waxaan isla fahanay waxa Cusmaan ku dhacay inay yihiin wax macquul gal ah oo ku dhicin karo isagoo kaliya maana xitaa inay orhan ku dhici karaan ayaanu arki karnaa dadkii weydiinayaan ma laga yaabaa inay soo laabato malhuun waxa soo celay filimka dhamaad waybe macquul way soo laaban kartaa laakiin gabadhaas maadaama aktarad weyn ay tahay uma malaynay inay sidan fudud ku soo laabanayso leeyahay taxanaha season-kan waa laga maarmay iyada sida ma ka muuqato haddana soo laabatana markaasi wax oo kuma jiro markaasi aan dhihi karaaniga faa'iido weyn ku jirto ma dhihi karo laakiin iska qurux badnaa laftirkeeda inay noqoto badbaadiya Cusmaan hatta wax qurux badan ay noqon lahayd inkastoo dadka qaar ay u badinayaan Cusmaan wiilkiisa badbaadinaya ala diinkii oo xajooga miya badbaadinaya qabiilkiisa kaas isaga ayaa bala tacaalayso maahan dad dhibaataysan inuu daaweeyo badbaadin dadkaas uga filan aabisa maaha aabisi waa sameeysan yahay Mongooliska haystaan daawada iyaga haystaan iyaga daaweynayo gacanta ku heenaya maahan dil in markaas inay rabaan Cusmaan inay dilaan Mongooliska ujeedkooda saas ma waa ka duwan yahay khilaafsan midaas iyaga ujeedkooda waxa uu yahay Cusmaan inuu amarkooda qaato
isla mar ahaantaasna uu adeeco siday u adeecayaan oo kaleeto dadka idil kuwa ku hareeraysan oo kale hadda tusaale ahaan hadduu Ilaahay ku idmaayo maxay ahaayeen waxaan ay samaystaan imaarooyinka ku hareeraysan oo dhan way ixtiraamayaan wayna adeecayaan ninka lagu magacaabo Ologaan Khan asagana wuxuu doonayaa markaasi inuu sidaas oo kaleeto Cusmaan uu adeeco taasina macquul maaha sida ma ka muuqan kartaba tan waxay ku soo dhamaan doontaa wixii la yaqaani jiro ay had markaasi Cusmaan in akhiran uu dili doono abaandulaha Mongooliska laakiin taasi ka hor waa rafaadinaya alla basaasiir cajiibsana ninkan horta marna uu ku niijimay taxani albarsla markuu ku jiro wad aragtay awoodi uu lahaa hadda taxanihii Cusmaan uu soo galay Cusmaan la rafaadinaya bal gaaya sax xasuusanaysa waxyaabaha filimkaad ka dhacay markaad aragto yaab oo cajiib ninkan doorkiisa in waxay u agtaab aniga laftirkeyga aan taageeri doono oo dhankiisa aan ka safan doono isla mar ahaantaasina aan aqbali doono marka waxyaabaha uu sameynaya markaasi inay yihiin waxyaabo markaasi macquul gala oo la qaadan karo boqolkiiba boqol daawada adiga fikirkaaga dhankaas comments-ka nugula wadaagi kartaa wixii fikirkaaga waa muhiim dhankaas comments-ka nugula wadaagi kartaa aniga la hadda wax ma xukumin karo laana ilaa hadda waxba dhiman oo aan la arkin ba gabi ahaanba waxaad iska ilaawaysaa gabi ahaanba markaad goosgoos ka daawato gabadhii xanuunsaneed magaceed muxuu ahaa Maryam lagu magacaabayay dadkii dhibaateysnaay ee qabiilka ee wada xanuunsanay sunta la siiyay waxaas dhanka goosgoos ka daawato xitaa ilaawaysaa orahan xitaa ilaawaysaa in xiray xitaa ilaawaysaa kadib marka Cusmaan gacanta lagu riday dadka dhan indhaha waxay ku hayaan Cusmaan all eyes on Cusmaan way marka waa Cusmaan dadka dhan indhaha ku hayaan marka sidaas darteed meesha waxaa ka muuqato Bozak in uu markaasi laba kacleyn doono oo wax weyn uu markaasi la soo laaban doono sidii uu egtahay waay markaan ka fiirino goosgooska waxaan ku aragnay Cusmaanna waa diiday marnaba inuu markaasi u jilba dhigto Mongooliska inkastoo sayidnimada ay kala wareegeen gacantan ay ku dhigeen wixii akhbaarada oo soo baxay insha Allah daawada halkan ku la wadaagi doona muuqaalada inoo la gareeyo aad iyo aad u maasantihiin channelka da ku cusubtiina subscribe inoo saara dhankaas comments-ka insha Allah muuqaalkiisa waxaan ka dhigi doonaa muuqaal su'aaliyo jawaabaha dadkan ka gaaraan ka soo jawaabi doona hadduu Ilaahay idmaayo dhankaas comments-ka noo wadaagi aad iyo aad u maasantihiin daawada intaan ku kulmi doona muuqaalkiisa waxaan kaga tagay salaanta salaamka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh